kulan wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn Qatar oo Imaaraadka Carabta ka ilaalinaysa inuu kasbado ciidanka Soomaaliya xilli dawladdaasi ay xiriir la leedahay ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Cali Guudlaawo oo 3 qodob ku qanciyay beeshii tabashada ka qabtay maamulkiisa xog ku saabsan 3daasi qodob ayaan idin haynaa sidoo kale wararkeena waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qarxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay isgoyska Ceelgaabta qasaaraha jira iyo xogo ku saabsan ayaa daawan doontaan doorasho gacantaag ahna maanta waxay ka dhacday Muqdisho wararka caalamka waxa daawan doontaan weerar culus oo lagu qaaday garoon ku yaala dalka Sacuudiga wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa waa Khamiis 10 Febraayo sanadka 2022 ee u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi waxaa sii xoogsanaya loolanka dalalka qaliijka ee Soomaaliya iyadoo Qatar oo 5 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo la lahayd xiriir wanaagsan ay saameyn weli ku dhex leedahay siyaasadda dalka Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa hadda dib u soo nooleeyay dhaqdhaqaaqyadii diblomaasi ee Muqdisho iyadoo safiiradooda ay dhowr sano kadib dib ugu soo laabteen saaxadda siyaasadda Qatar ayaa isha ku haysa dagaalka ay Imaaraadka iyo Sacuudiga ugu jiraan inay gacanta ku dhigaan siyaasadda Soomaaliya waxaana ay isku dayaysaa inay ka soo xirto albaabada oo idil safiirka dawladda Qatar Xasan bin Hamza Hashim ayaa la kulmay taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba Yusuf Raage oo ugu tagay xafiiskiisa Muqdisho Qatar laguma baran inay taageerto ciidanka Soomaaliya oo tababaro ay siiyaan Turkiga Mareykanka iyo Midowga Yurub iyadoo Imaaraadka uu joojiyay markii khilaafka uu bilowday sanadkii 2018 Imaaraadka ayaa saldhiga ciidanka Gordon oo ku yaala Muqdisho ku tababari jirtay guutada 14 Oktoobar oo kamid ah militariga Soomaaliya ilaa 2018 markii lacagta 9.6 milyan laga qabtay Qatar ciidanka waxay ka ilaalinaysaa Imaaraadka Carabta mar kale inuu ku soo laabto saameyntii uu ku lahaa militariga maadaama hadda xiriirkooda uu dib u soo celinayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble markii ugu horeysay oo Qatar ciidan u tababarto Soomaaliya waxay u qaaday kumanaan dhalinyaro ah dalka Eritrea kuwaasi oo hadda tababarkooda dhameystay lana doonayo in dalka dib loogu soo celiyo Qatar ayaa aaminsan in haddii Imaaraadka Carabta ay gacanta ku dhigto ama ay dib u soo celiso tababaradii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya ay meesha ka saari karto dawladda Qatar oo hadda xiriir la leh madaxweyne Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka hogaamiyaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen iyo waxgaradka reer Beledweyne ayaa heshiis dhawaan ka gaaray khilaafkii taagnaa muddadii sanadka ahayd ee sababay inuu Cali Guudlaawo dhisi waayo xukuumad inuu Beledweyne tagi waayo ama inuu xitaa qabsan waayo xafladiisa caleemasaarka ciidan ay madaxtooyada Soomaaliya geysay magaalada Beledweyne ayaa dhawaan sababay inuu Guudlaawo tago magaaladaasi iyadoo aysan dhicin wax rabshado ah hadalkii koowaad ee uu jeediyay markii uu Beledweyne tagay ayaa kamid ah waxyaabaha furaha u noqday inuu wada hadal la yeesho bulshada magaalada gaar ahaan beeshii tabashada qabtay inkastoo arintan muddo laga soo shaqeynayay haddana Cali wuxuu sheegay maalintaasi inuu diyaar u yahay xalinta tabasho kasta haddii ay tahay mid beeleed mid deegaan ama mid shakhsiyadeed kulan muhiim ah oo ay Beledweyne ku yeesheen Cali Guudlaawe iyo beeshii tabashada qabtay ayaa lagu gaaray heshiis buuxa sida uu maamulka faafiyay muuqaalada la sii daayay waxa ka muuqatay odayaasha beesha oo cudurdaar bixinaya kulanka wuxuuna ku bilowday in Cali laga raali geliyay in loo diiday inuu tago magaalada Beledweyne intaas kadibna waxa loo gudbay qodobada muhiimka ah ee salka u ahaa tabashada beeshan waxayna bilaabatay markii ay waayeen kursigii hogaanka maamulka Hirshabeelle iyadoo ay Jowhar isku heshay caasimadii iyo hogaankii maamulka 3 qodob ayaa si buuxda loo dul istaagay kulankii ka dhacay Beledweyne kuwaas oo la xaqiijiyay in is-afgarad laga gaaray 1 caasimadda Cali Guudlaawe waxa la hordhigay inuu caasimadda soo wareejiyo maadaama uu hogaankii maamulka qaatay Cali waxa la sheegay inuusan arintaasi diidin markii horena uusan diidma ka qabin balse wuxuu sheegay inuusan isagu bixin karin oo ay tahay in sifo sharci ah loo maro oo loo baahan yahay codka 3 meelood 2 kamida xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe wuxuu odayaasha u sheegay inuu arintaasi kala shaqeynayo una diyaar u yahay
63 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle waxay ka soo jeedaan gobolka Hiiraan, wuxuuna Cali u sheegay odayaasha inay taasi ka caawinayso in mashruucan degdeg lagu hirgeliyo. Odayaasha waxaa la sheegay inay ku qanceen in arrintaasi loo wajaho si baarlamaani ah. qodobka labaad oo ay ku heshiiyeen ayaa ah awoodda hogaamiye ku-xigeenka maamulka. Cali Guudlaawe waxaa lagu xujeestay inuu awood badan haystay markii uu ahaa hogaamiye ku-xigeenka maamulka, sidoo kalena ay beeshiisa haysatay wasaarado muhiim ah. waxaa la weydiistay inuu soo wareejiyo wixii ay isaga iyo reerkiisa haysteen markii uu ahaa hogaamiye ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle, waxaana la sheegay inuu Cali taasi aqbalay oo uu hoosta ka xariiqay. 3 degmooyin cusub. odayaasha waxay Cali Guudlaawe ka dalbadeen in degmooyin cusub la siiyo ama kuwo la magacaabay xilligii Cali Cabdulaahi Cosoble inuu sharciyadooda baarlamaanka geeyo oo uu soo dhameystiro degmanimadooda. waxaa la sheegay inuu Guudlaawe aqbalay qodobkaasi isagoo xusay inay jiraan degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo iyaguna miiska saaran uuna isku dari doono, sidaasna uu baarlamaanka u gudbin doono si looga dhigo degmooyin rasmi ah. waxaa kaloo kulanka lagu soo hadal qaaday in kuraasta golaha shacabka ee taala beledweyne in doorashadooda ay si hufan oo cadaalad ah ay u dhacdo, iyadana waxaa la sheegay in mabda ahaan la isla qaatay. intaasi ayaa ugu muhiimsanaa doodii Cali Guudlaawe iyo reer beledweyne, waxaana la sheegay in kulanka natiijo wanaagsan uu ku soo dhammaaday. gabagabada wararkeenna ayaan joognaa daawadayaal. si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka, subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka. waxaa isa soo taraya macluumaadka laga helayo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay isgoyska Ceelgaabta ee Muqdisho, kaasi oo geystay khasaare kala duwan. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo ka warbixiyay qaraxan ayaa shaaciyay inuu fuliyay qof isku soo xiray walxaa qarxa. Cabdifitaax ayaa sidoo kale xaqiijiyay in qaraxa ay waxyeelo badan ka soo gaartay dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay. dhanka kale, warar aan helayno ayaa sheegaya in ismiidaamiyaha uu beegsaday ciidamo ku sugnaa goobta iyo gaari la sheegay inay saarnaayeen ergo ka mid ah kuwa ka qaybgalaya doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee ka socota Muqdisho. wadada uu qaraxa ka dhacay ayaa xirnayd sababo la xiriira doorashada kuraasta gobolada waqooyi. sidoo kale waxaa meesha uu qaraxa ka dhacay ku taala bar control oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada, isla markaana lagu hubiyo gaadiidka galaya Villa Soomaaliya. maalmihii u dambeeyay waxaa gudaha Muqdisho ka dhacayay falal lid ku ah ammaanka sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ku soo aaday xilli doorasho. wararka doorashada intaan ka bixin, Muqdisho waxaa maanta ka dhacday doorasho gacantaag ah. kursiga Hoob 205 oo lagu bilaabay doorashada waxaa ku guuleystay Axmed Cabdi Kooshin kadib markii ay u tanaasushay Muna Xuseen Faarax oo la tartami lahayd. Kooshin ayaa loo qaaday codeyn gacantaag ah, wuxuuna helay 99 cod sida uu shaaciyay guddiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland. guusha xildhibaan Axmed Cabdi ayaa ahayd mid la sii ogaa maadaama si gaara kursiga loogu xiray si uu ugu biiro baarlamaanka 11aad. kursiga labaad Hoob 263 ayuu ahaa, waxaa ku guuleystay Muuse Saciid Jaamac oo helay dhammaan codadka ergada oo ah 101, waxaana u tanaasushay Qadra Cabdi Maxamed. sidoo kale waxaa cod gacantaaga ku soo baxay xubnaha kale ah Cali Maxamuud Aadan oo ku guuleystay kursiga Hoob 240, Cali Cabdi Ibraahim oo ku soo baxay Hoob 271 iyo Cabdiqani Ismaaciil oo isna ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hoob 241. guddiga doorashada Somaliland ayaa ku howlan dedejinta doorashada, taasi oo qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashooyinka ee ay gaareen golaha wadatashiga qaran. gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay. ugu dambeyn wararka caalamka haddaan eegno, 12 qof ayaa lagu dhaawacay firirka diyaarad daroon ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha Abha ee dalka Sacuudiga, taasi oo Sacuudiga ay sheegeen inuu dhexda ka qabtay barnaamijkooda difaaca hawada. howlgalkii diyaaradaha ee garoonka ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka ka wada Yemen. dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa oo ka soo kala jeeda dhowr dal, ayuu intaasi ku daray bayaanka oo ay baahisay warbaahinta Sacuudiga. kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ayaa inta badan beegsada garoonka Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga, meel ku dhow xuduudda Yemen iyo qaybo kale oo ka mid ah Sacuudiga, ayadoo ay adeegsanayso gantaalo iyo diyaarado daroon ah. inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa dilay dhowr qof kuwa kalena dhaawacay.
xulafada Sacuudiga ayaa si joogto ah duqeymo uga fuliya Yemen halkaas oo ay sheegeen inay beegsadaan bartilmaameedyada Xuutiyiinta. Imaaraadka Carabta oo xubin ka ah isbahaysiga ayaa 2 goor sheegtay bishii Janaayo inay burburisay gantaalo balastig ah oo ay Xuutiyiinta ku soo weerareen. Hase yeeshee weerar dhacay horaantii Janaayo oo loo adeegsaday diyaarad drone ah ayaa 3 qof ku dilay magaalada Abu Dubai ayada oo 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaas oo ay sheegeen Xuutiyiinta. Wararkaasi ayaa ugu waaweynaa Soomaaliya iyo caalamka. inta ku kulmi doono wararkana soo socda nabadgelyo.